درجة كواد حينما قلب كسيدة سوماليا الليبان علي يرو عيا شرح يهرركي كلا دواناء سومرين أكيس كحسن سلمان إيا شافعي شاتا تاريخ مركي أهد لحدي بشي أفراد وكن أفري طوان قعن كدوغ ليا شكلها كو شباب حسن محمود عبدي نانيسي سأيتهاي سلمان لباتين سدح جرة إنا بطولة عبد الله كل شيء حمر دقن سوق حولها لابو شباب شافعي عبدي حرسي نانيسي سأيتهاي شافعي شتاء لباتين جرة إنا حاو عبدي كل شيء حمر دقن سوق حولها waxay si bareer ah oo ula kac ah oo qorshaysan dil ugu geysteen iyo kufsi marxuumada Nafiso Cusmaan Salaad ayagoo u dilay kaliya in ay u shaqeyso hay'adaha Turkiga kamid ah maalintii ay taariikhdu ahayd 31 bishii sanaad 2014 maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha waxayna ku xukuntay dil toogasho maalintii taariikhdu ahayd 3 bishii 6 2014 waxay ka qaateen xukunkii maxkamadda rafcaan maalintii ay taariikhdu ahayd 28 bishii 6 2014 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar kale waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha kala ah shabaab xasan maxamuud cabdi naanaysiisa ay tahay salmaan labo shabaab shaafici cabdi xirsi naanaysiisa ay tahay shataa waxay ku xukuntay dil toogasho maanta oo taariikhda ay tahay 15 bishii 7 2014 waxay ku filisay xukunkii dilka ahaa lagu xukumay wabillahi tawfiiq حسن سلمان iyo shaafici shaata waxay ugu dambeyntii maanta adhadhamiyeen xanuunkii geerida ee ay dhadhansiiyeen marxuumad Nafiso Cusmaan waxa lagu toogtay meel fagaara oo caadiyan sidan oo kale dambiilayaasha gala dambiga dilka lagu toogto waxaana maanta si wada jir u toogtay ciidamada nabad sugidda booliska iyo militariga oo safaf u galay inay fuliyaan xukunka cadaaladda ee maxkamadda ciidamadu ku waxaana dilkaasi kadib maydadka shaafici shaata iyo xasan salmaan la wareegay dowladda hoose ee muqdisho oo u xilsaaran inay maydadkani duugto gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaashaanle sare Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare Cabdiraxmaan Cumda ayaa markii la soo gabagabeeyay fulinta xukunka ay maxkamaddu ku riday dambiilayaasha kala xasan salmaan iyo shaafici shaata la hadlay warbaahinta waxaana uu fariin u diray hay'adaha ammaanka oo ka dalbaday in dhinacooda aysan ku soo daahin dhagar qabayaasha sidan oo kala gala falalka dambiyada bismillaahir rahmaanir rahiim waad arkaysaan maanta qofkii way dhamaatay Soomaaliya wadankeena muddo badan wuxuu ku soo jiray in dambiye la geysto oo dilku u weyn yahay oo aan la isku raacin waa dhamaatay qofkii qof dila waa la dilayaa shabaab dadka arkaysaan maanta sharcigooda la fuliyay ku dhacay waxay ahaayeen shabaab ayagoo shabaab ah ayay dad dileen gabar qaaliya dileen oo aqooyahana siday sheegeena falka ugu xun bay ku sameeyeen oo ay karaamadeeda ay ku dhaawaceen jazahoodii ay maanta qaateen sidii sharciga ahay bay ku qaateen jazahoodii gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad baa akhriyay habka iyo qaabka iyo xilliyada ay soo mareen dacwadooda ay soo martay taa waa taas weey waxaan rabaa inaan dhowr message halkan ka diro
hay-adaha amniga waxaan leenahay dambiilaha aad soo qabataan agteenna ku daahi maayo laakiin agtiina ku daahi sharciga baa qofkii shabaab ah degdeg 3 maalin ma nagu dhaafayo hadduu maxkamadda ciidamada qalabkiisa soo gaaro waxaan leenahay agtiina ku daahin taa qodob weyn qodobka labaad aan rabo inaan halkan ka sheego waxa weeyaan dadka ku afuraya dhiigga muslimiinta waxaan leenahay waa dhamaatay inaad badbaadaan waddankan inaad u timaadaan inaad burburisaan oo marka muslimiintu afurka u fariisato aad dhiigooda ku afurtaan ilaahay idinkiis dawladnimada iyo qarannimada baa lagu difaaci doonaa dadkaas waana dhamaatay inaad fakataan qodobka saddexaad oo rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan isbaaradu dadkay u taallo dadkaas bay la mid yihiin dadka ay wadooyinka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isbaarooyinka u taallo haddaan maanta leedin qaban karin magaciina noo diiwaan gashan haddana waa diiwaan gelihiina maalinkii leedin soo qabtana tiirkaasaa idin horso shabaab iyo isbaaro isku mid waaye waa dil toogasho ah sharciga baa sidaa qaba madaxweynaha jamhuuriyadda waa ku dhawaaqay dambilo fakada amba gruub abaabulo noqo amba dambilo shakhsiya noqo mar kastaba waa laga daba tegi sharciga ayaan lagu marsiin taas weeye midda dawladnimadeenu ku soo noqon karto dadkeenu dad wanaagsan weeye haddaan mujrimka laga qaban nolosha u diidaya haddaan laga qaban tuuga haddaan laga qaban kan nolosha u diidaya dawladnimo jiri mayso waxaan maxkamadda ciidamada qalabka sida anigoo ku hadlaya magaceeda ballan qaadaynaa inaan shaqadeenna iyo kaalinteenna fulinayno gaashaanle sare cabdiraxmaan xumda guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada waxa uu ballan qaaday inaysan cadaaladda ka fakan doonin cid kastoo al-shabaab ah oo la hor keeno maxkamadda ciidamada xukunkan dilka waa kii ugu horreeyey ay maxkamadda ciidamadu fuliso tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu u magacaabay maxkamadda sare ciidamada cabdiraxmaan xumda oo ahaa sargaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya haddana ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya عبد العزيز أفريكا SNTV